barnaamijka hargalkana si toos ah ayaad u daawanaysan. markana waxaynu tageynaa magaalada Hargeysa. maxaa lagu hargalay maxaa maanta la hadal hayaa ee jawiga cimilada magaalada Hargeysa ayaa ah mid ka duwan sidii hore maalmihii la soo dhaafo magaalada uu kuleel ka jiray, balse maanta ayaa la leeyahay jawiga sidaasi waa uu ka qabow yahay. qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa wariyaheena Cabdiraxmaan Jumba uu mikrofoonka barnaamijka hargalka la dhex qaaday isagoo wax ka weydiiyay cimiladii jawiga magaalada Hargeysa. hargal wanaagsan hargalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa jawiga magaalada Hargeysa oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay ahaa mid ka duwan kii ay bulshada Hargeysa ay ku baratay, kaasi oo ceeriyaamo ay isku xidhay. imika saacadu waa 10 subaxnimo waqtigan oo kale Hargeysa sida ma yahaan jirin. cadceedda ayaa aad u kullaan jirtay, laakiin guud ahaan jawigu sidii hore uu ka duwan yahay. qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa ayaan wax ku weydiinay isbedelka jawiga magaalada Hargeysa. waxaana cabirka halbeega lagu cabiro qabowga uu marayay 19 sentimitir. weliba waxaan moodaa saaka sidii shalay aad uga sii qaboobay. intaan u baahayna khasaaraha ay sababeen dhimasho, laakiin dhaawac culus bay ahayd. waxaa ka mid ah khasaaraha uu sababay. fariinta kaliya u diraya waxa weeye in dadweynuhu maadaama ceeriyaal ay jirto aan waxba loo adkeynin in baabuurta ay iska socdaan oo